عليه وايد السلام يا ميل كسته او دونيدا جوجتابا دلك غوديسا iyo dibadiisa maanta farxadeeda lama qiyaas karo waxaan ku faraxsanahay eelkayagii qaraabadayadii dadkayagii Soomaaliyeed ee Puntland dagaalka ay galeen ee dhulkooga kaga nadiifinayaan shabaab iyo Daesh nidaamka ay u galeen siday u habaysan yihiin collective responsibility ee nin wala meeshiisa shaqada ka galay meeshii loogu tala galay dumarku cuntaday karanayaan dhakhtaradu nursing ay hawsha ku jiraan basaski sameynayaan direewaliinti qof walba u dagaalkii ku jiro hoggaanka loo sameeyay hore waxaan u sheegay dadkani inay yihiin genius dagaalkoodu waa genius wax qabadkoodu waa genius planning-goodu waa genius dagaalka sida ugu jiraan waa genius iyo dhul iyo bad meel walba way kaga jiraan sida iskugu gurmanayaan planning-ga loo sameeyay qorshaha la sameeyay oo concrete taasa lagu jabiyay beerihii ku soo duulay dhulkooda ay ku jabiyeen farxad bay noo tahay Soomaali haddaan guulaha istabajooga ee gaadhaysaan madaxweynahoogiiba safka hore ku jira oo ciidankii hogaaminaya cid walbaba waa collective responsibility dagaal la iska sheega on ma waa dagaal la qorsheeyay oo la nidaamiyay oo la bilaangareeyay oo hoggaan loo sameeyay oo concrete wariga arkaya guruhu sida isku daba joogaan siyaasad degan weeyaan oo concrete marka waanigi lahaa reerkan waa genius waa inay genius haayeen maanta arkaysan dagaalka sida ugu jiraan dhaqaalaha sida ugu jiraan caawimaadaha sida ugu jiraan askartu cuntada lagu geenayo meesheeday ku cunayaan hilib iyo cuntadii oo qasacadaysan bay cunayaan sida loo nidaamiyay baa genius waanigi hore idinku sheegaya la mid maaha dagaalka koonfurta ka dhacaya ee al-shabaab lagu hayo maaha kaasi waa dagaal saaxiibtinimo waa match amical waxa la yiraahdo weeye kaasi subaxina waa laga saaray galabtina ku soo noqdo ay qorshe male halkan systemkii baa yaala qorshihii baa yaala nidaamkii baa yaala aqoontii baa taala cilmigii baa yaala dadkoo dhan baa genius shicibku waa niga arkay waa genius dagaalkii bay galay nin walba halkiisu ka galay farxad bay noo tahay naga siyaada oo ku faraxsana dagaalkaas iyo guulaha aad gaadheen iyo dhulkiinii oo nadiifiseen baan ku faraxsanaynaa ku hambalyeynayna waxaan cambaaraynayaa kuwa Hargeysa joogay maanta la wareysanayo ee lahaa shabaab baan taageerna iyo Daesh baan taageerna xasidnimo ay ka tahay xumaan la mid weeyi dagaalkii kan shabaab ku qaaday soobe 750 qof u dhinteen Hargeysa baarti baa ka socotay wanigi ogaa tabtii un bay la mid tahay wax macno sameynaysaa ma jirto way fogaadeen laakiin wala xisaabtam ninkii dadka xasuuqay ee la ascaaro dadka ku xasuuqay ee dadka laayay 3,000 oo qof ay dhinteen 3,000 oo qaxooti barakiciyay hawshiisii way dhowdahay waa good news waxa dhiman maanta waxa la dooranayaa Germankii Afrika ayaa la dooranaya ee igaad waxa maxaa u jeedaa OAU-da waxaana soo baxaya sida aan rumaysanahay wasiirka arrimaha dibadda Djibouti waa soo baxaysa wala la xisaabtami ninkii Muusabixi ee dadka xasuuqay wuxuu ka daran yahay Bibi Netanyahu ayuu ka xun yahay sababtoo ah hadduu hubka u haysto Bibi Netanyahu awoodda u haysto hadduu haysto Muusabixi waxba ma reebeen dadka uu dhamayn lahaa laakiin intuu dad xasuuqay u baabiyay labada dhanba ayuu rabaa inuu Hargeysa joogo oo nabad ku noolaado laakiin ma dhacayso waa good news arrinkaas waa soo dhamaanaya dhawaan he will pay the price maxkamadda u dhadhamin sharciga u dhadhamin waa la horkeen taasina waa good news waxaan rajaynaynaa inuu soo baxo Germanka Afrika wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf waan rajaynaynaa haddii la yiraahdo maanta dhacaysa iyo bari iyo sahan dambe ugu dambeyn way socotaa doorashan taana waan hambalyeynaa oo soo baxo waxa kale oo rabay inaan laba kalmadood iraahdo reerka aan ka dhashay duloobay abtiyaashay iyo adeeraday ciisiya sabaroon gobolka awdal way duloobeen baryo reer dawlad samaystay oo maamul samaystay oo wax noqday oo meel istaagay bay hoos joogaan way dawarsanayaan waxay leeyihiin
waxaan doonaynaa saami qaybsi 40 sannadood saami qaybsi iyaanad bay hoos joogaan dawlad la wada leeyahay sameynayna waa been wax la wada leeyahay ma jiro idinku wax noqda dawlad samaysta maamul samaysta waa la idinka kari waay inaad dagaalantaan ma rabtaan inaad dawarsataan baad rabtaan dawarsi baad rabtaan inaad dawarsataan beesha dhexe SNM inaad dawarsataan baad rabtaan oo kii waa halkan waxay siiyaan iyaga ayuu ninkiyay u naageeya waxba ma noqonayaan waa dad dhintay oo mayitiina dawladii Soomaaliya markay jireysay beesha Samaroon qarankii Soomaaliyeed bay difaacaysay dad nool bay ahaayeen oo sharaf iyo karaamad ku nool oo qarankii Soomaaliyeed bay difaacayeen beesha Ciise shaydaan bay shirkad la galeen iyagu SNM bay la sharakoobeen oo wax ku darsadeen wixii ka gaadhana waa garanaysaa nin walba og yahay qasaarihiina gaadhay waa mid aan qiila loo haynay dadkayga ku dhammaaday dagaalkii aan galay wixii naga gaadhay warogna duruufta isku keentay maanta isku danbaanahay ma hoos joogi karno waan daalay inaan dagaal gallo weeyaan waa in dagaalka la idin keeno haddaydaan idinku galayn qasab waxa ah in la idin keeno kii wax noqda ee maamulka SNM wax siyaana iyagu amaanaya amarka ilaahay kii wax noqdaana iyagu amaanaya halka boorama mid baa yimid xamud muxuu kii baarlamaanka fadhi miisku garaacay tolki wuxuu lahaa anagu ma nihin Soomaali ee waxaan nahay Somalilander isaaq baa nahay uu ku faanay tolki buu hanjabay ku faanay Hargeysa markuu tagana waa bisad buu noqdaa waa hawsnaga nin lamida oo isaga lamida intuu soo kacay isagoo guldoonkii baarlamaanka fadhiya andoof madaxa kaga tufiyeenda saas isku marmarinay uma kicin ninka iskala mahada waka halkan hadboora markuu yimaadana dadkiisu aflagaadeynaya oo caayi oo aniga arkay yola manihimba Soomaali buu dhinay garanaya inuu Soomaaliya ayuu diidaya suu saaq iskaga dhaadhiciyo waa sharci yani in saaq isku ekeysiiso SNM isku ekeysiiso ayaad wax ku helaysaa wixii hore daadiya buuni tuura ka tuura mid kale yimid deebiga beenaala nabiga kaleey salaatu wasalaam nabadgeliye naxariiso korkiisa aatay wuxuu yiri aniga ummadayda kamid ah beenaalo kamid ma uu yiri beenaalo tuug waa dhici kartaa criminal waa dhici kartaa wax walba laakiin beenaale kamid ma uu dadkay nin la yiri wasiirka maxaa wax samaysteen iyo wasiirka warfaafinta oo ugu tala galay inuu koonfur caayo ayaa shalay soo fariistay wuxuu leeyahay anagu dimuqraadiyad baan nahayo dal dimuqraadiyan wariya dimuqraadiya qabiil baa istortama dimuqraadiya markay nation dad isku tagaan ee istortaan baa dimuqraadiya laakiin qabiil istortay dimuqraadi ma aha number 1 number 2 wuxuu yiri dawlad baan ahayn oo 60 kiiman colooni buu leeyahay uu sheegaya iyo qarannimo la soo nool hada huwa kadab beenaala tahay goorma dawlad ahayd 60 kii maxaad ahaydeen ma dawlad bay noqotay isaaqu dawlad buu noqday iyaa madaxweyne ahaa halkii la fariisanayay baarlamaankooda halku ahaa wasiiradu maxkamay ahaayeen ma sheegi kartaa ya kadab maalintii ninka la magacaabay xadiis buu qaaday quraan intuu meel tagay ayuu dad u qaaday shillaad yani wuxuu ku faraxsanaa uu qaaday shillaadka magacaabista la magacaabay markaasuu been halkan isla soo taagay wuxuu rabaa inuu ka farxiyo beesha dhexe SNM inuu ka farxiyo nin walba siduu uga farxin lahaa buu ku tala jiraa bareerahan dhintayna la eega isiya Samaroon waa dad dhintay mayitiina dawarsiga ayaad ku fiicantiin laakiin haddeed inta in ka badan ma dawarsanaysaan albaabka la idin soo xidhi dagaalka waa la idin keenay waan awoodnaa maanta in dagaalka la idin galiyo oo gudaha idin ku keeno dagaal gashaan haddeed ma dawarsanaysaan ya alla waxsiye ma jirto haddeed iyo saami qaybsi jiri maayo nin walba alaabtaada geejiso soo kama idaan hoos bixi waayin soo ma idaan xiroow waayin oo reer ma hoos fadhidaan waxa qasab ah inaan idinku keeno dagaalka aboorama iyo saylac iyo lugaya iyo bakki dagaalka idinku galno qasab weeye meel kale la maraya ma jirto waqadaas awa planning waqas in la idin keeno oo dagaalka la idinku qasmo idan ma doonaysaan inaad dawarsataan baa doonaysaan oo kala meel intaad fadhiisataan tiraada saami qaybsi iyo saami weydiinaysa ma isaaq wada ku darsatay ma maamulkooda wax ku darsatay ma dawladdaad la leedahay iyagaa samaystay waa qabiil dawlad samaystay ayaad weliba adigu sii hoos joogtaa
وكا علي حامد وكيلها أنه مملين صومالي بس إذا سنة اللي دي كسوكا صومالي منين ووحنا إسنم ووحدنا يقرنينا صومالينا وحد يكرمها وحاس وحد قصب هدد ون أودنا إن دقال كلا إيدين قليو أفرتن إنا أو سوق أشاد دقال كيدين قلني صحابة دول بكريدي وتكون قصبنتينا دقال قشان مربطان إنا دولي هاتان مربطان أو دور ستان أو ضدك وحي الريبان القاطان أو إذا نفي نورتون أنا الهي إنا تيرش حمر كهل يسي لها waxay tiri koonfur bay wax ka sheegtay way ku soo kortay environment kan ay ku soo kortay ba haytirita Soomaaliina abi environment ka ay ku dhalatay ayaa aad ka buuxan nacaybka Soomaali nacaybka oo qofkii Soomaali caaya wax noqda inantan yare la leeyahay yahay dadkii qofkii Soomaali caaya wax buu noqda oo SNMta wax siinaysa oo biladaa lagu xidha oo wadani ba taa la oranaya oo imika waa loo yeeray oo biladaa loo xidhay falsa يا لو يحدي دونا قفك وإنه صوماليا عايا وصوماليا وحكا شيغا وبنتي الله وحكا شيغا وهوي وحكا شيغا ودارد وحكا شيغا ودقلي يمرفلع عايا سيو وحن نقضه ويسلم تسكير دادعي وإنه وحصمية لكن الباب كوان صوحرينا وحصوحرينا أبواب كي دورسيغا الباب كي بريضة سامي قيفسي وحلا سامي قيفسي يمجر الاربع ماشي اسكالي هذو عم بعضون نقوه أم بكه أصبح جويس قالوا كوبا ناني مجرو كي وحيسيانونا عيبت الجوج هرقيسة مركات جوك طلب بالصلاة نقطان جير مركات بورا ما يسير عيكتب أدانا مدحبا نقطان فاق دبادات كلاقات قادان ما أودي كتاني هرقيسة كان حدا الشعب ما أودان وحكوفانا ينوى بينو دادكي سيحاني أيو كفانا من حلدبانو هورنا ولا قدر بحالك أو سمرون ولا دربحيبة والشارك على قدر جحي برا قرتي دعليدا كما خلي كرانا كاسوكا دات كانوا وادد اللوبي ودلوبي أو إهانوبي أو دينتي أو ميتين قبل كان دات كنول عيسيا سمرون وادد دينتي وميتين قصب وحا انت قال كلو قليو أو لوغو كانوا ميشو ده وحبدا اللوغ كانوا حبدا لقريدو oo dagaal la geliyo oo dagaalka galaal ugu qasbo ada hal kale ma jiro ad baadi salaamaya Soomaali meel kasto dunida joogta farxad bay maanta farxad badan baan ku jirnaa Puntland guuleystaan leenahay waxa kale oo rabaa inaan iyadana hambaliyeeyo koonfur galbeed sharciga yaala nidaamka yaala cadaaladda taal halkaas loo baahan yahay qofka cadaalad u baado qofka qof dila laba cisho ka dambeynaya xamarna ninkii islaantiisa gubay صدح محكمة الحكومين ولي جيلكو كجرا والله اسكو هايستا ولا ديلي يلا ديلي مايو قبيل با اسكو هايستا عدالة waxay taala koonfur galbeed aqoon iyo cilmi iyo garaad iyo garasho iyo haybad iyo dawladnimana waxay taala Puntland waxa reer kasto oo horumar sameeyo war habalyeynayna aad baanu habalyeynayna waxaan ilaawo mid baa isku qalday Djibouti iyo Gabiley baa isku qalday oo taahayan arkay wala waxaan ahay waa koloshaarka waxa la yiraahdaa dadkan dariiqa saxda dib jirka mid dib jira oo malaha Djibouti wuxuu dib jirka jira wuxuu ku leeyahay waxaan ahaa la taliyaha madaxweynaha ya kadaab ma adiga madaxweynaha arki kara la taliyaha iska dhaaf oo reer Djibouti baan ahay mucaarad baan ahay mucaaradka reer Djibouti magacaba sideed mucaarad ugu noqon kartaa Djibouti adigu إذا نما أدرين به ما قبيل يجيبوت أسكو غلطيسا معاك هو جاي إسماعيل مرقل اللي سوى يدبر ما مشقة تقول ما ضاد دورت إسماعيل مرقل اللي معاك هو جاي إن هذا فلق عديس سو إذا بدر ما هو حاس هذي قد دبتي كل الشارع إن أترى هذا معارض بار يجيبوت عن كالية كما هذي كنت جيبوتي وهي شقتكم لي أنا ودل كم واحد شوقة صدق هي أفرت الصنة ضد بين شوقة معارض ده كمان نقنكر سيدنا أترى هذا جيبوتي وأنا معارض أقول نقنية ورمضة كحشور رير قبيليو نجح الشهداء عيب ويا رير قبيليو واحد وضاني وعيب قبيلي عرب صيا هي جيبوتي بتكلا جران لادين هي كلابين بتكلا جران لادين جيبوتي حق مالي هدينا المعارض كنقط بدحونا إسماعيل بقلان هذا القادان حق مالي هدينا وإذا بدرون وحيدين قيس إذا بدرها يدين قيس يدر هذا الجوجية أدبا دي السلامية